subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu door koron warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. Dowladda Soomaaliya ayaa si ka dhaxaysa qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho ayaa saaka u xiran ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Maamul goboleedka Puntland ayaa ka taliyaha ciidamada Somaliland oo buuq badan ka dhaxdhelisay maamulkaasi. dowladaha Faransa, Shiinaha, Mareykanka iyo Kuwait ayaa Soomaaliya ku taageeray. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa kulan aan caadi ahayn la qaatay madaxweynaha qoomiyadda Oromada ee dalka Itoobiya. wasiirka ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ugu sarreeya maamulka culimooyinka Ahlusunna. xaaladda maxaabiis ku jira xabsiyada deegaanada Somaliland ayaa laga dayrinaya iyo guddiga xuquuqda caalamka maanta waxay ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb. akhbaaraadka dibadda warbaahinta Simba subaxnimadkan idiin haysana waxaa ka mid ah dowladda Venezuela iskaga difaaci lahayd dowladda Mareykanka iyo Boko Haram oo sheegatay mas'uuliyadda qarax ka dhacay bariga dalkaasi. markale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo Khamiisa 2019 intii aad maqasheenna waxay ahaayeen qodobada ugu door koron warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. aan ku bilaabay go'aan uu laalay qaramada midoobay isla markaana ay dowladda dalka Kenya horgeysay. dhinaca kale dowladaha iyo waliba Kuwait ayaa ku taageeray dowladda federaalka Soomaaliya go'aankaasi. danjiraha qaramada midoobay u fadhiya dowladda federaalka Usman ayaa waxa uu ka hadlay qaraarkaasi dowladda dalka Kenya ay shabaab loo aqoonsado waxyaabaha reer galbeedka ugu yeeraan argagixisada. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan aan caadi ahayn ka yeeshay u gudbisay dowladda dalka Kenya waxaana wararka helen ay sheegayaan in dowladaha Faransiiska, Mareykanka, Kuwait iyo sidoo kale taageereen sidii qaraarka loo laali lahaa maadaama haddii qaramada midoobay al-shabaab ay ku darto ururada argagixisada ay caqabad weyn ku noqon doonaan. danjiraha qaramada midoobay u fadhiya dowladda federaalka Soomaaliya Abuukar Daahir Cusmaan ayaa waxa uu sharaxayaa qaabkay u uga guuleysteen Kenya. sidee codeyntan u dhacdo ka gedisan tahay sida caadiyan ay codeynta u dhacdo oo markii ama golaha ammaanka ay keenaan cid ka baxsan 15 qolo oo ka tirsan outside the 15 hadduu keeno inay keenaan xaqi u leeyihiin dowlad kasto aamusnaan ah. marka haddii hal wadan oo ka mid ah 15 wadan oo ku jira golaha amniga oo yiraahdo arrintan ama hala celiyo oo hala geliyo oo waxba noogu dhiman weliba waxaan u baahannahay inaan wada hadal kale ka sii galno xaqi u leeyihiin taasina ku dhamaanaysaa Mareykanka geliyeen maantana 6 wadan oo ka tirsan golaha ammaanka oo 4 European ah iyo Mareykanka oo yiri halkan in la joojiyo sidiisa golaha la keenay laakiin cod looma qaado markii uu ku jiro waxay dhahaan 0 ku jiro golaha waa ka doodayaan haddii su'aal qabaan waxay gelinayaan hol markay arrinteedu waa iska caddeed waxay leeyihiin waa in ay ku jiraan 1267 oo ka gedisan micnaheedu ma aha inayna shabaab ku jirin shabaab already waxay ku jirtaa resolution ay maxaa yidhaahdaa golaha amniga. sidoo kale qoraal ka soo baxay filla Soomaaliya isla markaa ay baraha bulshadu ku xiriiraan ayaa waxa agaasimaha warfaafinta filla Soomaaliya uu kaga hadlay arrintan. wuxuu sheegay inay soo dhawaaday in dowladda dalka Kenya ay dana gaara ka wadato Soomaaliya. maamulka Puntland uu dhawaan jeediyay taliyaha guud ee ciidamada Somaliland kaas oo buuq badan ka dhaxdheliyay maamulkaasi. taliyaha ciidanka sheegay in saraakiishii ka goostay maamulka Somaliland dhinaca Puntland iska dhiibayeen kuwa markii horeba qaran dumis ahaa. ka mid ahaa in Cornel Caare uu yahay nin dhigyacab ah dad badan ku laayay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag siiba deegaan hoos yimaada degmada booliiska maamulka Puntland oo xalay warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso
ayaa waxa uu sheegay in hadalkaas uu yahay mid gaf haya maamulka Somaliland. waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan cid walba oo dhinaca maamulka Somaliland ka soo goosanaysa isla markaana dhinaca in cafis kan Somaliland hadda u hayaan ay iyagu u fidin doonaan isla markaana ciidamadooda ay ka mid noqon doonaan. mar oo ka mid ah saraakiisha hore Soomaaliyeed haddana aanu fili doono inuu dib u noqon doono sarkaalka Soomaaliyeed. duruufo qofka markaa sarkaalkaas uu hadlay hadalladiisina way badnaayeen. waxaan qabaa hadalkiisii hadlayna waa ku faraxsanahay. hadalkaas wuxuu ahaa hadal dani ugu jirto dadka ka soo jeeda ama ciidamada ka soo jeeda waliba beelaha garxiis awdal kama tagana iyo dawladda Puntland. sababtoo ah hadalkii Congress-ka sheeganta yaalay rasmiga ahaa go'aamadii intii buu shaaciyay. waxaan kaloo uga hambalyeynaya nuux waa sarkaal ka mid ah saraakiisha Soomaaliyeed. ahaatee dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo ku sugnaa deegaano hoos yimaada degmada Cerigaawa ay ka soo goosteen maamulka Somaliland isla markaana ay isku dhiibeen maamulka Puntland. kol hore ayay ahayd markii sidan oo kale korneelka lagu magacaabo Cawil Ciise Korneel Caare uu iska dhiibay Puntland wuxuuna sheegay in haba yareetee uusan mar dambe ku laaban doonin deegaanada maamulka Somaliland. magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug xalay waxaa kulan ku qaatay wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale culimo diinka Ahlus Sunna wal Jamaaca. kulamadan ayaa inta badan waxa diiradda lagu saarayay sidii looga si dhaqaaqi lahaa halka la taagan yahay maadaama Ahlus Sunna wal Jamaaca ay sheegayaan inay tabanayaan waxyaabo badan oo loo baahnaa in la meel mariyo. culimo diinka Ahlus Sunna wal Jamaaca dhowaan bayaan ay soo saareen waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay jabisay dhammaan qodobadii lala galay. dowladda oo si kulul uga jawaabay arrintaasi waxay soo bandhigtay dukumiintiyo cadeynaya inaysan dowladdu ka bixin heshiisyadaasi iyadoo taa beddelkeedu dowladdu ay ku dhaleeceysay Ahlus Sunna in ay weli caqabad ku tahay geedi socodka iyo isbeddelka hana qaada deegaanada maamulka Galmudug. xalay ilaa goor dambe oo saak ahayd waxaa socday kulamo lagu xalinaya arrintaasi waxaana madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb ka dhacayay kulamo isdiidan. kulamada u horeeya waxa ay dhexmareen wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya injineer Cabdi Maxamed Sabriye iyo sidoo kale wasiirka amniga oo isku dhinaca iyo waliba xubnaha ugu sareeya Ahlus Sunna sida Macalin Maxamuud Sheekh Shaakir iyo sidoo kale Shaacir. wararkan Helen ayaa waxay sheegayaan in kulamadaasi is-afgarad ay ku soo dhamaadeen walow wararka qaar ay tilmaamayaan in Ahlus Sunna wali ay fartu ku godan tahay. xubnaha ku shiray magaalada Dhuusamareeb oo aan la xirin ayaa waxay noo sheegeen in Ahlus Sunna ay ka tanaasushay mowqifkii ay ka taagneed in wax walba sidii la rabay ay ku socdaan iyadoo taa beddelkeedu wakiil ay samaysatay Ahlus Sunna kaas oo matali doona wadahadallada dowladda federaalka shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada la filaya inay ka dhacdo deegaanada maamulka Galmudug. xaaladda maxaabiista ku jira deegaano ka tirsan Somaliland ayaa laga dayrinaya iyadoo dhinaca kalena guddiga xuquuqda aadanaha ay booqdeen xabsiyo qarsoodi oo ku yaala magaalooyinka Burco iyo sidoo kale Boorama. xubno ka socda guddiga xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu u yahay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay la kulmeen taliyaasha markaasi ilaaliya xabsiyada ku yaala deegaanada Somaliland siiba magaalooyinka Hargeysa, Berbera, Burco iyo sidoo kale Boorama. xabsiyada qaar waxaa la sheegayaa in lagu jirdilo maxaabiista halka kuwa kale la sheegay inay cuntada ka soomeen. taliye ka tirsan ciidamada Somaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in booqasho qarsoodi ah ay xabsiyadaasi si kadis ugu yimaadeen commission ka socday dhinaca xuquuqda aadanaha kuwaas oo sheegay inay qiimeyn ku sameynayaan qaabka iyo sida loola macaamilo maxaabiista ku jirta xabsiyada deegaanada Somaliland. labada xubnood ee ka socda hay'adda xuquuqul insaanka qaranka arrin kasta oo ayna weydiiyaan waan uga jawaabaynaa arrin kasta oo aan wax kala qaban karnaa waanu kala qabanaynaa
ayagana sidoo kale waxaan rajaynaynaa wixii muxuu ahaa dee ayaguna inala qaban karayaan inala qabtaan xabsiga gobolka awdal nagu soo booqday 2 xubnood oo ka socda komishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Rooda Axmed Yaasiin iyo Cabdirashiid Siciid yaa nagu soo aad baan nagu soo dhaweynaa daatiin xuquuqul insaanka qaranka xabsigii gobolka awdal ilaa salal weeyaan marka soo dhaweyn wanaagsan aad baan ugu mahadnaqaynaa booqashadna soo booqateen soo dhaweynta fiican iyo wada shaqaynta mar walba inaga dhaxaysa ee aan uga bogono hawlaha xabsiyada taasoo loo baahan yahay markasta xabsiyada waxa ku jira dad muwaadiniina waxay leeyihiin xuquuqdoodii asaasiga ahayd in lagu ilaaliyo oo laga wada shaqeeyo oo la kormeero waxa kale oo mar labaad aan uga mahadnaqaynaa saraakiisha iyo askarta xabsiga sida fiican ee ay ula dhaqmaan maxaabiista iyo sida fiican ee loo ilaaliyo xuquuqdooda in aan muddo dhaaf ka dhicin xabsiyada iyo taliixigeenkiisa aad baan ugu mahadnaqaynaa gabi baahiyaha asaasiga oo soo aragnay haday biita haday qololkii tahay haday wixii rumaan ku xiran wixii xukun ka dhamaaday dhammaantood guduhu taliyuhu la galiyay si fiican waan u soo kormeernay waajibkeygina waan ku gudanay waa shaqadeedii kormeerkii qofkii la soo xiray xuquuqdiisa in la ilaaliyo halkuu ku xiran yahay inuu xukunkii ka dhamaaday waxa uu ku eedeysan yahay inuu cadaalad helay waxa soo dhan weeyaan shaqadeeda waxay ahaayeen qaar ka mid ah guddi ka socday hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay Hargeysa kuwaas oo booqasho lama filaana ku tagay xabsiyo la sheegay in si qarsoodi ah loogu jirdilo dadka kuwaas oo ku yaala magaalooyin ka tirsan deegaanada Somaliland taliyaasha la eedeynaya waxaa ku jira taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Somaliland kaas oo la sheegay inuu amar ku bixiyay in xabsi ku yaala duleedka Hargeysa lagu jirdilay boqolaal kuwaas oo ku dhawaad 3 maalin cuntada ka soomay guud ahaan dhageystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Simba waa naga inta warkayga ciddu uu sheegay simbanews.com ayay ka heli karaan waana ku mahadsantihiin dhageysiga iyo la socodka warkayaga subax ee nabadgelyo